fadlan subscribe channelka sidoo kalena gambaleelka furo si uusan ku dhaafin wararka muhiimka ah ee aanu halkan soo gelino. kulanti wacan wanaagsan daawadayaal Rabadaan Kariim meel walba aad joogtaan ku soo dhawaada wararka ugu waaweyn ee Bidhaamiya TV waxaana ka mid noqonaya qodobada aad ku daawan doontaan. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Filish oo boqolaal qof oo dhigay barnaamij kula hadlay degmada Boondheere ee gobolka Banaadir. Ciidamada booliiska Soomaaliyeed oo sheegay in la soo qabtay askarigii dadka shacabka ahaa ku dilay degmada Boondheere ee gobolka Banaadir. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo dalka Kuwait kala hadlay taageeridda xakamaynta COVID-19 barnaamij ka dhanaa ciidamada dawladda Soomaaliya oo Muqdisho ka dhacay. Somaliland oo ku dhawaaqday go'aamo ku saabsan ka hortagga COVID-19. 66 xildhibaan oo mooshin ka keenay gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Hirshabelle. Xildhibaan Fiqi oo markii ugu horeysay ka hadlay xilka wasiirnimo ee loo magacaabay. Akhbaaraadka caalamka ee aad ku daawan doontaan Bidhaamiya TV-na waxaa ka mid noqonaya qaar ka mid ah gobolada dalka Mareykanka oo laga qaaday bandowgii lagu soo rogay. dhageystayaal isku soo laabasho wanaagsan ku soo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan. wasiirka wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Fawziya Abikar Nuur ayaa maanta sheegtay in kiisas hor leh oo ku saabsan cudurka COVID-19 laga helay gudaha dalka Soomaaliya. 62 qof ayay maanta sheegtay in laga helay xanuunka COVID-19 halka 2 ruuxna ay u geeriyoodeen. tirada dadka uu soo ritay cudurkan ayay guud ahaan ku sheegtay Fawziya Abikar Nuur 390 qof in ay marayso haatan tirada guud ee dalka gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamed Maxamuud Filish oo degmada Boondheere kula hadlayay dadweyne barnaamij dhigay ayaa sheegay in uu ka xun yahay dadkii shacabka ahaa ee xalay lagu dilay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. gudoomiyaha ayaa sheegay in ay tilaabo ka qaadi doonaan askarigii dadka shacabka ah xalay ku dilay magaalada Muqdisho waxaana uu sheegay in ay gacanta ku hayaan hay'adaha ammaanka. Cumar Filish oo la hadlayay boqolaal ka mid ah shacabka reer Boondheere oo dibadbaxayay waxa hadaladiisii ka mid ahaa dhacday waa mid aan idinla wadaagayno xanuunkeeda. mar haddii aan idinla wadaagayno tallaabaha aan qaadnay ayaan idin sheegaynaa. tallaabaha aan qaadnay dhacdadii xanuunka lahayd ee xala dhacday tallaabaha aan qaadnay ayaan idin sheegaynaa. keligeed diray dadka waxaa loo qaaday xabsiga ayaa loo qaaday. arrintaasna waa loo daba taagan yahay. ciddii amartay iyo isagaba tallaabo cad ayaa dawladdu ka qaadaysaa. taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen askarigii dadka shacabka ahaa ku laayay xalay magaalada Muqdisho. waxa ay sheegeen in askariga uu si bareera u toogtay 2 ruux oo kala ahaa haweeney iyo wiil dhalinyaro ah xilli ay fadhiyeen albaabka gurigooda oo ku yaala meel u dhow isgoyska Jubba. askarigaasi ayaa markii uu dilay 2daasi ruux dadka ku dhaqan degmada Boondheere waxa ay dhigeen barnaamijyo ay kaga soo horjeedaan dilkaasi loo geystay 2daasi ruux. barnaamijka oo ahaa mid rabshado wata ayaa soo gaaray xilli dambe kadib markii dadweynaha ay taayiro ku gubeen isgoyska Jubba ee magaalada Muqdisho. Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre ayaa dhanka qadka telefoonka kula hadlay dhigiisa dalka Kuwait. kulanka ayaa looga hadlay iskaashiga labada dal iyo sidii dawladda Kuwait ay Soomaaliya uga taageeri lahayd dadaalada looga hortagayo cudurka COVID-19 ee dunida saameeyay. waxaa sidoo kale kulanka looga hadlay dhexmaray Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre iyo dhigiisa dalka Kuwait. waxaa sidoo kale kulanka looga hadlay dhexmaray Ra'iisul Wasaaraha dalka Soomaaliya iyo dhigiisa dalka Kuwait arrimaha amniga, dhaqaalaha iyo siyaasadda dalalka ku jira ururka Jaamacadda Carabta. Ra'iisul Wasaare Xasan Cali ayaa sidoo kale dhigiisa kala hadlay iskaashiga labada dal dhinacyada dhaqaalaha, amniga, siyaasadda. dawladda Kuwait ayaana sheegtay in ay ka taageeri doonto dalka Soomaaliya sidii ay ula tacaali lahayd cudurka COVID-19. dawladda Kuwait ayaa saaxiib dhow la ah dalka Soomaaliya. barnaamij looga soo horjeeda dil xalay degmada Boondheere loogu geystay 2 ruux ayaa mar kale saaka dib uga bilowday magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. sidoo kalena dawladda dhexe Soomaaliya ayay ka dalbanayeen in ay cadaalad
cadaalad helaan muwaadiniintii xalay lagu dilay magaalada muqdisho. banaanbaxan ayaa waxaa hormuud ka ah dhalinyarada degmada Boondheere. taliska ciidamada booliiska Soomaaliyeed ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen askarigii xalay dilka ka geystay degmada Boondheere ee gobolka Banaadir. ugu dambeyn taliska booliiska Soomaaliyeed ayaa sheegay in ay xabsiga dhigeen dable xasan aadan xasan oo ka tirsanaa ciidamada booliiska Soomaaliyeed oo 24 jir ahaa. 66 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka Hirshabelle ayaa mooshin ka gudbiyay gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Hirshabelle Sheekh Cismaan Barre Maxamed. gudoomiyaha baarlamaanka ay ku eedeeyeen ku takrifal awoodeed iyo in uu sidoo kale ku fashilmay qabsoomidda kulamada baarlamaanka maamulka Hirshabelle. waxay sidoo kale ku eedeeyeen in uu faragelin joogto ah uu ku hayo laanta fulinta isla markaana uu xoogaystay khilaafka kala dhaxeeya madaxda Hirshabelle. xildhibaanada ayaa xusay in uu jabiyay gudoomiyaha dastuurka maamulka Hirshabelle isla markaasina xilka qaadis lagu sameeyay wasiiro ka tirsan Hirshabelle. uu diiday gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabelle ayay ka dalbadeen in uu baarlamaanka hor keeno xisaab xirka lacaga loogu talagalay baarlamaanka maamulka Hirshabelle oo la lunsaday. wasiirka maaliyadda Soomaaliland Sacad Cali Shire oo la hadlay warbaahinta ayaa soo bandhigay go'aamo dawladdu ay gaartay oo uu ku dhaliyay xanuunka COVID-19. waxa uu sheegay in ay hoos u dhigeen canshuuraha laga qaado ganacsatada deegaanada maamulka Soomaaliland. wasiirka ayaa sheegay in boqolkiiba 20 la dhimay canshuuraha laga qaado ganacsatada Soomaaliland, waxaana uu sheegay intaasi ay sabab u tahay xanuunka faraha baan ku haya caalamka ee COVID-19. wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in la sameyn doono sanduuq dhaqaale aruurin ah kuwaasi oo lagu taakulayn doono dadka uu soo rita cudurkaasi. maamulka Soomaaliland ayaa markii ugu horeysay canshuur dhimis u sameeyay ganacsatada iyo waliba shacabka Soomaaliland. xildhibaan Axmed Macalin Fiqi ayaa markii ugu horeysay ka hadlay go'aankii uu ku doortay ka mid noqoshada maamulka Galmudug isagoona haatan ka ah wasiirka amniga ee maamulka Galmudug. Axmed Macalin Fiqi ayaa sheegay in aysan jirin wax iska bedelay siyaasadiisa balse uu ku soo kordhay. waxa uu sheegay in mabaadi'da iyo qiyaamka qofka uu aaminsan yahay aysan ahayn wax guurguura ama isbadbedela. sidoo kale xildhibaan Axmed Macalin Fiqi ee haatan noqonaya wasiirka amniga ee maamulka Galmudug ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay xilkan loo magacaabay balse waxa uu sheegay in mowqifkiisu uusan isbedelin. xildhibaan Fiqi ayaa dowladda federaalka Soomaaliya mucaarad weyn ku ahaa balse madaxweyne Qoorqoor madaxweynaha Galmudug ayaa u magacaabay wasiirka amniga ee maamulka Galmudug. taasi ayaana sababi karta ayaa la leeyahay in uu hoos u dhaco eedeymihii joogtada ahaa ee u soo jeedin jiray dowladda federaalka Soomaaliya. waa hagaag dhegeystayaal halka aad warkaasi ka daawanaysaan waa Bidhaamiya TV. iminkana akhbaaraadka caalamka. ilaa 3 gobol oo ka tirsan dalka Mareykanka ayaa dib u furay xarumaha ganacsi kuwaasi oo jabiyay bandowgii saarnaa iyadoona tirada dadka u geeriyooday dalka Mareykanka cudurka COVID-19 ay gaartay 51,000 oo ruux. waxaana dib loo furay dukaamada raashinka lagu iibiyo, maqaayadaha iyo weliba goobaha dumarka lagu qurxiyo. dadka adeeganaya ayaa la faray in ay dhowraan ama ay raacaan tilmaamaha caafimaad, waxaana la faray in ay kala fogaadaan oo ay isku jirsadaan ugu yaraan 1 mitir. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa shalay ku dhawaaqay in aysan sax ahayn xanibaadda saaran qaar ka mid ah gobolada dalka isagoo sheegay in dhaqaalaha dalka uu hoos u dhac weyn ku yimid. waa hagaag dhegeystayaal guud ahaan warkii aad ka daawanayseen Bidhaamiya TV waa naga intaas. Ramadaan Kariim, nabadgelyo.